Manchester United oo dalab cusub ka gudbisay Bryan Mbeumo. Kooxda Manchester United ayaa si rasmi ah u gudbisay dalab cusub oo dib loo eegay si ay u dhameystirto saxiixa weeraryahanka reer Cameroon ee Bryan Mbeumo, kaas oo haatan ka tirsan kooxda Brentford. Dalabkii hore ee Red Devils oo gaaray ilaa 62.5 milyan ayaa la diiday dabayaaqadii bishii June, balse wararku waxay sheegayaan in Mbeumo uu u sheegay kooxdiisa Brentford in uu doonayo inuu kaliya u wareego Old Trafford xagaagan. Mbeumo oo dhaliyay 20 gool xilli ciyaareedkii hore ee Premier League ayaa noqday mid ka mid ah bartilmaameedyada ugu sareeya ee tababaraha cusub ee United Robin Amorim, kaas oo doonaya inuu xoojiyo weerarka kooxda. Waxaa sidoo kale xiiseynayay xiddigan kooxaha kale ah Arsenal, Newcastle United iyo Tottenham Hotspur oo hadda tababaro u yahay Thomas Frank, waana macallinkii hore ee Brentford. Dalabka cusub Manchester United ayaa haatan miiska saartay dalab ka badan kii hore oo gaaraya 65 milyan oo pound, iyadoo lagu daray 5 milyan oo gunooyin ah. Waxaana kooxda Brentford la sugayaa inay bixiso jawaabta kama dambaysta ah. Maxaa la filan karaa haddii Brentford ogolaato dalabkaas cusub? Mbeumo wuxuu noqon karaa saxiixa ugu muhiimsan ee United ee xagaagan, maadaama kooxda ay ku jirto dhismaha koox cusub oo dib loogu dhisayo sumcadda kooxda oo hoos u dhacday sanadihii u dambeeyay. Waxaa la filayaa in saacadaha ama maalmaha soo socda heshiiskan uu noqdo mid hirgala. Qodobkaasna wuxuu ahaa qodob kale oo xiiso badan oo aan ku soo qaadanay barnaamijka bandhiga ciyaaraha ee aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo suuqa kala iibsiga. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.